dagaal culus oo ka qarxay magaalada Laascaanood ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan ka codsanayaa inaad na soo follow gareyso sidoo kaleetana muuqaalkan aad like gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada wararka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in maanta uu dagaal culus dib ugu qarxay duleedka magaalada Laascaanood kaasoo u dhaxeeya ciidamada militariga Somaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SSC Qaatumo. dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu xoogiisa hadda ka socdo bariga magaalada Laascaanood halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada labada dhinac. ila wareedin lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in dagaalkan uu ka dhashay weerar ay ciidamada Somaliland ku soo qaadeen fariisin ay leeyihiin kuwa SSC Qaatumo waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaalka oo ilaa haatan ka socda bariga magaalada Laascaanood. militariga Somaliland ee duulaanka soo qaaday ayaa iska caabin adag kala kulmay dhanka ciidamada deegaanka ee SSC ee haatan ku sugan jiida hore ee dagaalka. xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan waxaana la soo warinayaa inay labada dhinac isweedaarsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. sidoo kale madaafiic xoogan ayaa ku dhacday aagga lagu dagaalamayo taasoo ugu sii daraysa xaaladda adag ee ka taagan halkaasi. macadda khasaaraha ka dhashay dagaalkan haddana wararka aan ka helayno magaalada ayaa sheegaya in cusbitaalada la geeyay dad dagaalka saaka ku soo dhaawacmay. dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan dagaalka ku dhaxmaray bariga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. muddooyinkii u dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ahayd mid degan inkastoo mas'uuliyiinta labada dhinac ay hanjabaadyo isku marinayeen warbaahinta.